السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السوداء وهذا أدي هذا أمهات سنتهين. أصحابتي يقال الصعود يوتيوب كو فيسبوك بيج يقال الصعود يكو لبا تيك توك يقال الصعود. ما أنت وإسنين ولحدة بشا كوبي تبنات سنة كلابا كون يسدح يلباتن كمقال كانوا حربا إن نوجه الله نين كنياتي أو قبر أي صاحبها هاين ويدنا كنياتي لكن مريكان كيكو هذا نولاني وضد مريكان كدلي مقالة بوسطن إسلام مركانا ودن كبحصة هالكو آذينين كاسي ترام oo la filayay maanta in uu maxkamadda ka soo hormuuqdo si ugu marqaati furo kiiska dacwadda madaniga ah ee ku socota oo ah 250 milyan ee lagu dacweynayo inuu ganacsigiisa lacagta ama qiimaha uu joogay qiimo ka badan oo ku sheegay oo maanta maxkamadda markii uu soo istaagay marqaati ahaan asaga iyo garsooraha xaaladdu ay taag ka gaartay arintaasna waxaan rabaa sidoo kale inaan idila socodsiiyo balse marka hore aan ku hormaro magaalada Boston ee gobolka Massachusetts gaar ahaan airportka la yiraahdo Logan International Airport oo ku yaala magaalada Boston ayaa habeennimadii talaadada ahayd waxa laga helay meydka haweeney magaceeda la yiraahdo Margaret Imbitu oo 31 jir ah. Haweeneydan waa Kenyaati asal ahaan laakiin hadda waa Mareykan ayay ahayd. Waxa meydkeeda laga dhaxlay gaari baakinka airportkaasi yiilay markii boolisku lagu soo wargeliyay Isniintii la soo dhaafay. Isniintan maanta maatii ka horeysay in haweeneydaasi la la'yahay waxaana ugu wardambeysay iyadoo shaqadeeda maadaama kalkaaliye caafimaad ahayd ka soo baxday markay saacadu ahayd 11 habeenimo ama 5 saac oo habeenimo Halifax meel la yiraahdo ayay ka shaqeynayso oo 30 mayl u jirta dhinaca koonfur bari ee magaalada Boston. Xilligaas ayaa ugu wardambeysay dadkeeda ayaa booliska ku wargeliyay in la la'yahay. boolisku baaritaan ayay bilaabeen waxa la qaybiyay waraaqahan oo la la'yahay qofkan la la'yahay magaciisa da'diisa iyo lagu sheegayo kadibna boolisku baaritaan ayay bilaabeen waxaana baaritaankii habeennimadii la helay arbacada ahayd meydkeeda 6:00 ayaa boolisku waxay ka heleen baakinka airportkaasi iyadoo kursiga hore ee gaariga ee suunkuna u xiran yahay meyd ah kursigaasina qof ku fadhiya amal loo maleeyo marka ninka lagu eedeynayo inuu dilay magaciisa waxa la yiraahdaa Kevin Kangete isaguna waa 40 jir waxa la yiri ninkaas xiriir ayaa ka dhaxeeyay oo dad wada socday ayay ahaayeen qofku marka uu geeriyoodo hadduu rag ahayn qofkii ugu dhawaa ama dumar ayaa laga shakiyaa haddii ay dumar ahayn yaa qabay ama uu saaxiib la ahayd waxyaabahaasi ay inta badan boolisku ay ka shakiyaan ninkan waxa loo maleynayaaba markii gabadha shaqada ka soo baxday kadib oo ay sarkeen isla markiiba inuu dilay waxaana la xaqiijiyay in dhiig fara badan gaariga gudihiisa lagu arkay isla markaana midiyo wajigeeda iyo qoorteeda iyo qaybo kale oo jirkeeda ay dhaawacyo midiyo ah ay ku yaaleen marka ninkan isla habeenkii ayuu dilay kadibna meydkeeda ayuu gaariga ku qaaday airportka baakinkiisa ayuu dhigay maba uusan isdhibina ticket ayuu online ka jartay talaadadiina diyaaradda ayuu raacay oo wuxuu aaday dalka Kenya oo ninkaasi wadanka waa uu ka baxay sawirkan aad arkaysaan kaamarooyinka airportka ayaa qabtay ninkan markii uu baxayay sidaas darteed ayaa looga shakiyay oo baaritaanka lagu bilaabay marka ninkan hadda waxa ay ciidamada boolisku ay sheegeen in waaran loo soo jaray lagu soo xirayo isla markaana ciidamada booliska ee dalka Kenya ay kala shaqeynayaan sidii ninkan loo soo qaban lahaa Mareykanka iyo Kenya waxa ka dhaxeeyo heshiis la yiraahdo extradition treaty oo ah haddii qofku uu Mareykan intuu dambi ka galo oo Kenya u cararo in Kenya ay dib ugu soo celin karto wadanka Mareykanka haddii qofku uu Kenya intuu dambi ka galo Mareykanka uu galana soo galana Mareykanka uu dib ugu celin karo marka FBI da ciidamada booliska Kenya ay kala shaqeynayaan sida ninkan la yiraahdo Kevin Kangete oo 40 jir ah oo la rumaysan yahay ama loo maleynayo hadda nin laga shakisan yahay inuu gabadhaasi dilay in sidii dib loogu soo celin lahaa Mareykanka isla markaana cadaaladda uu halkan ugu mari lahaa marka sidaasi ay boolisku sheegeen gabadhan kalkaaliso ay ahayd waxaana sidoo kale loo maleynayaa in xiriir uu ka dhaxeeyay isla markaana ninkan sidaasi uu ku dilay gabadhan kadibna uu wadanka ka baxsaday oo dhinaca wadanka Kenya uu aaday wararkaasi ayaa ugu dambeeyay iyadoo haddana labada booliska Kenya iyo waliba FBI da Mareykanku ay ka wada shaqeynayaan sidii ninkaasi dib loogu soo celin lahaa Mareykanka si uu cadaaladda uu gudaha Mareykanka ugu maro maadaama halka uu dilka ka geystay ay tahay gudaha wadanka Mareykanka dhinaca kalena maanta waxa la sugayay in Donald Trump uu ka soo hormuuqdo maxkamadda madaniga ah ee uga socota magaalada New York isla markaana loo haysto in ganacsigiisa hantidiisa qiimaha ay joogto qiimo ka badan oo ku sheegay waxaana dacwad oogaha
magaalada New York haweeneyda la yiraahdo Letitia James ay ku dacweynaysaa Trump inuu bixiyo $250 milyan isla markaana maxkamaddu waxay go'aan ka gaari doontaa inuu ganacsi ka sii samayn doono magaalada New York iyo in kale. Labadiisa wiil ee waaweyn ee Don Trump Jr. iyo Eric Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamadda kasoo hormuuqda waxayna isku difaaceen annagu maba ka warqabinba arrintan waayo dad waxaa jira xisaabiyaal oo lacag aan ku siinay waxa ay noo soo gudbiyaan ayaana saxiixi jirnay oo annaga dadkaasi ayaa noo qaabilsanaa dhinaca xisaabaadka. Trump ayaa marka maanta maxkamadda inuu ka marqaati furo ahayd. Trump markii uu maxkamadda soo galayay waxaa la arkayay isagoo afkiisa sidan dhahaya oo macnaheedu waxay tahay ma hadlayo oo afka ayaa i xiran oo kaamarooyinku ay qabanayeen. Maxkamadda gudaheeda kaamara lagama ogolo laakiin ka hor intaysan maxkamaddu furmin ayaa la ogol yahay in sawirro iyo muuqaalo ay kaamarooyinka duubtaan kadibna bannaanka ay u baxaan. Inta dacwadda iyo marqaati furka ay socdaan gudaha maxkamadda lagama ogolo wax kaamarooyina. Marka Trump markii la dhaariyay kadib isla markiiba isaga iyo garsooraha Arthur Engoron ayaa isku dhacay. Trump waxa uu diiday in uu ka jawaabo su'aalihii ay weydiinayeen dacwadoogayaasha gaar ahaan ninka la yiraahdo Kevin Wallace ayuu diiday inuu su'aalaha uu ka jawaabo. Mararka qaarna jawaab dheer oo aan micno sameynaynin ayuu Trump halkaasi ka jeedinayay. Sidaa darteed isaga iyo garsooraha ayaa isku dhacay. Garsooruhuna waxa uu ku hanjabay in Trump maxkamadda uu ka saari doono haddii uusan ka jawaabin su'aalaha la weydiinayo. Garsooruhu waxa uu yiri halkan ma ahan ololihii siyaasadeed oo adigu sida aad rabto aad u hadlaysay. Sidaa darteed qareennada Trump ayaa waxa uu ugu baaqay in ninkan ay xakameeyaan. Waxa uu yiri haddii aadan xakameyn karin aniga ayaa xakameynaya. Marka Trump waxaan ognahay inuu yahay nin hadal badan inta badanna su'aasha la weydiiyo sida ay tahay ma uga jawaabo. Marka isaga iyo garsooraha xaaladda waxa ay ka gaartay taagtaag isla markii ay maxkamaddu ay furatanba. Waxa uu sidoo kale Trump dacwadoogayaasha uu diiday inuu su'aalahaas uga jawaabo waxaana uu yiri dacwadoogayaasha dacwadahan igu soo ogay iyo xisbiga dimuqraadiguba aniga ay necab yihiin. Qareennaduna mar kastaba dacwadahayga aniga ay xaggayga uma xukmiyaan ee dhinaca kale ayay u xukmiyaan. Marka garsoore Engoron ayaa waxa uu Trump ku amray in uu ka jawaabo su'aalaha ay weydiinayaan dacwadoogayaasha waxaana sidoo kale uu weeraray dhammaanba dacwadoogayaasha isagoo yiri haddii garsoore wuxuu yiri aniga waad weerari kartaa waxaad rabto waad iga sheegi kartaa laakiin muhiimaddu waxay tahay su'aalaha lagu weydiinayo in aad ka jawaabto. Halkanna maxkamad weeye halka aad joogto oo ma ahan ololihii siyaasadeed oo wixii aad rabto aad ka sheegaysay. Waxaana garsooruhu ugu baaqay qareennada Trump in ay la hadlaan isla markaana ay u sheegaan in uu joojiyo hadallada bilaa micno la'aanta ah su'aalaha la weydiinayana sida tooska ah uu uga jawaabo. Waxa uu sidoo kale qareenku uu la hadlay mid ka mid ah qareennadiisa wuxuu yiri xakameeya ninkan aad qareenka u tihiin oo aad difaacaysaan haddii aad xakameey waysaan aniga ayaa xakameynaya. Marka Trump waxa ay maxkamadiisu ay maanta ku bilaabatay arrintaasi taagdaaga. Garsoore Arthur Engoron ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay mid ka mid ah qareennada Trump oo magaceeda la yiraahdo Ale Haba waxaana uu sheegay in ay fariisato. Fariise ayuu ku yiri garsooruhu qareenka Trump markii ay istaagtay oo ay ku adkaysatay in la dhageysto Trump jawaabaha dhaadheer uu ka bixinayo su'aalaha la weydiinayo. Xitaa qareenkiisa Trump ayaa lagu amray in ay fariisato. Marka Trump waan ognahay waa nin cara badan wejigiisa cara ayaa ka muuqatay markii maxkamadda uu soo galayay iyo weliba markii uu maxkamadda gudaheeda fadhiyay waxaana uu ku sheegayba in maxkamaddan ay tahay mid waxba kama jiraana oo waxa uu yiri maxkamaddan aniga ayaa guuleystay waxay ahayd mar hore in xaggayga loo xukmiyo laakiin maxkamaddu weli waa ay socotaa. Waxaa dhiman Arbacada oo 8 bisha ah gabadhiisa Ivanka Trump in iyadana maxkamadda looga yeeri doono halkaasna ay ka hor marqaati furi doonto walow iyadu eedeysana aysan ahayn oo Trump iyo labadiisa wiil kiiskan ay ku eedeysan yihiin. Haddana dacwadoogayaashu waxay yiraahdeen gabadhiisa Ivanka Trump waxaa laga yaabaa macluumaad dheeri ah inay hayso sidaa darteed waxaan u baahannahay in halkaasi marqaati fur ay ka samayso oo ay timaado. Waxayna isku dayday xitaa maxkamadda racfaanka inay dacwada ay u gudbiso oo ay ka gaabsato inaysan maxkamadda tegin laakiin ugu dambeyntii waxaa maxkamadda racfaanku ay tiri waa inaad tagtaa halkaasi isla markaana su'aalaha lagu weydiinayo aad ka jawaabto. Marka marqaati furkii Trump ee maxkamadda maanta si wanaagsan ma uusan ku bilaaban isaga iyo garsooraha. Xaaladdu waxay ka gaartay maxkamadda ayaan ka saari doonaa Trump haddii aadan su'aalaha lagu weydiinayo aadan ka jawaabin isla markaana aadan joojin hadallada micno la'aanta ah oo halkaasi aad ka jeedinayso. Marka wixii ka soo kordhana waynu arki doonaa haddii alla idmo halka maxkamadda Trump ay ku dhamaato iyadoo la filayo marka gabadhiisa la wareysto kadib toddobaadka soo socda in go'aan uu ka soo bixin doono. Maxkamaddan waxaa go'aan ka gaaraya waxay tahay garsooraha maxaa yeelay xeer beegti haddii la xuli lahaa qareennada Trump
waqtigii loogu talagalay in ay codsigaasi gudbiyaan ma aysan gudbin. sidaa darteed bench trial ayay tahay oo garsooraha ayaa go'aan ka gaaraya arrintan. garsooraha iyo Trumpna iskuma fiicno, waa tii 2 jeer Trump uu ganaaxay markii amarkii lagu soo rogay oo shaqaalaha maxkamadda inuusan hadallo ka sheeginahayd, marna 5,000 la ganaaxay, marna 10,000 la ganaaxay. marka garsooraha go'aanka uu maxkamadda ka soo saaro, Trump laga mamnuuci doonaa inuu wax shaqo ah ama ganacsi uu ka sameeyo New York, iyo lacagta la ganaaxay inta ay la ekaan doonto, maadaama inta aysan maxkamaddu bilaabanba garsooraha uu yiri Trump dambi ayuu ku leeyahay oo musuqmaasuq ayuu sameeyay, ganacsigiisana qiimo uusan joogin ayuu ku sheegay oo ka badan qiimaha uu joogo. waxyaabaha ka soo baxa waad ila soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waroodin la sidaa iyo nabadgelyo.